السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وايد سلامي كسو دوادا maanta barnaamij oo barnaamijyada hore ka duwan baa wadaa insha Allah waxaa halkan marti igu ah Cabdullaahi Sheekh Axmed Suudaan oo taqaanaan kulligeena reer Mandheera horta dadka ku sugan horta aad bay u yaqaanaan masha Allah Allah barakeeyo Cabdullaahi baa qadka telefoonka aan iskala xiriirnay oo caawa in aan barnaamij aad xasaasi u ah inaan ka wada hadalno aan ugu talagalay Cabdullaahi oo hadda khadka aan kala hadlayo oo hadda ku sugan Suudaan maanta waxaa rabaa inaan ka warwareysto su'aalo kow iyo laba ah cinwaanka ah Ingiriis ahaan marka loo sheego difference between early marriage and late marriage, sida the importance of early marriage or importance of late marriage, one of them. And midaas oo ah guurka degdega ah ama dhaqso la guursanayo iyo guurka oo dib loo dhigo muhiimadda ay kala leeyihiin waxa su'aalo aan ka diyaariyay baan ka weydiin rabaa insha Allah. Marka horta Cabdullaahi soo dhawaaw insha Allah dadkana salaan duu ila yiraahdo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وين سلامي أخيارتا تاجردا يوتيوبر كوين أو زبير أصحاب كيسة فان كيسة هذا إذن سلام يا زبير وقف ولا كي قارنتي إسلسو كرني هذه بحب بدن باكفة إذا سنة رجينا يا ومنشد دي وبزنس مان دي وح كلام وكجران أنت أسكيك سو كوبا لكن صح waan gartay Cabdullaahi aad baan u dhawahay waana kaaga mahad celinayaa mawduucan oo runtii mawduuc muhiim ah inaad la soo wadaagto oo nacawadana fursad aan u helno insha Allah inaan ka wada hadalno insha Allah Cabdullaahi kulli su'aashayda ugu horeysaan galayaa sababtoo ah waqtigan hayo waqtigan waxaan rabaa inay noo koobnaado oo nagu soo yaraado sababtoo ah waa waqti dambe in aan maartay si kooban aan dadku uga faa'iideyno adiga aad uga faa'iideysid rabaa su'aashayda koowaad waxa waaye horta waa maxay farqiga u dhaxeeya guurka degdega iyo guurka la daahinayo iyo guurka la harakeynayo oo la soo hormarinayo macnaheedana waa maxay koodii horta macnaheeda inaan noo faahfaahisid rabaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta mas'alada guurka ah waa arrin runtii muhiim u ah qof walba oo bini aadan ah ha ahaado gaal ama muslim yani guurka bini aadan xataa iska dhaaf yani xayawaanka ay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka abuuray labo بالآدم أدى إلهي حليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة marka guurka horta waa shay asaasi ah dadka dhanna waa la isku waafaqsan yahay marka waxaa dhacda guurka dadna uu ku soo degdegaa dadna dib yani uu ka noqdaa marka maxay kala tahay the difference between early marriage and late marriage okay early marriage ka qofba si uu yaqaan horta hadaan ku hormaro early marriage ka hadaan ku hormaro qofba si uu yaqaan waa la kala duwan laakiin hadii la soo koobo waxa waaye qofka asagoo dhalinyaro ah inuu guursado waliba dhalinyaronimada bilowgeedii inuu ku guursado ayaa inta badan la dhahaa early marriage exactly ma sheegi karo sanadka la dhaho laakiin waxaa hubaal ah da'da oo qofka ragga ah la dhaho qofkan early marriage buu ku guursaday la dhaho iyo da'da gabadha la dhaho early marriage bay ku guursatay inay kala duwan tahay صح taas baa yani shaki ku jirin مثلا gabdhaha haddii lagu guursado 14 15 baa la dhihi karaa early marriage waay ama inta ka hooseysaba سيدي عائشة رضي الله عنها 9 سنة بالغ قرصدي رسولك عليه الصلاة والسلام 10 سنة مجتمع والبابا سي يعني قبله
yani mujtamacaadka qaar waxay sagaalkaas aan sheegnay iyo tobanka iyo 11 ilaa iyo 12 iyo 13 ilaa xataa marka 14 qofba marka si u yaqaana adi inahaas baa lagu tilmaamaa gabdhaha inay ali marriage u tahay raggana waxay dhahaan adiga 14 15 16 adi meelahaas ilaa xataa ilaa 20 dad baa gaarsiiyo dhaha ali marriage waaye marka late marriage kana haddii la dhahaa waxaa waaye qofka markuu dabcan soddonka kor u dhaafo hadday haween tahay hadday rag tahayna adigu 40 camal ama kor u dhaafo ama 35 meelahaas adi qiyaastii 30 qofka markuu gaaro uusan guursanin su-aalaha dadka isweydiiyaan su-aalahana way ku bataan iyo goormeed guursan doontaa iyo sidii hadda Zubeer aan ku hayna Zubeer iyo asxaabtiisa marka kaligiisa ma aheen صح marka ala kulli xaal sidaas baa la dhihi karaa runtii way kala yihiin ari marriage-ka iyo late marriage-ka sidaas ay ku kala duwan yihiin okay okay aada u mahadsan tahay Cabdullaahi shukran wa jazaaka allahu khayr sida aad noogu faahfaahisay su-aashayda koowaad waxaa waaye adiga Cabdullaahi ahaan ali marriage-ka iyo late marriage-ka keebaad qiimeyn lahayd ama muhiimadda ugu weyn aad siin lahayd ama keebaad taageertaa in qofka guur degdeg ah uu sameeyo iyo in uu guur dib u dhacdo oo maaragtay dambeysa uu sameeyo mid keebaa aad taageertaa ali marriage-kan taageeraa ali marriage-kan aad iyo aad u taageeraa maasha allah sababta aad ku taageertay maxaa waaye sababta aan ku taageeray waa asbaab fara badan aad iyo aad ugu fara badan runtii midda koowaad waxa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yani nasiixa buu asagoo dhalinyarada la hadlaya wuxuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj midkiina dhalinyaradow kii idinka mid ah oo awooda inuu guursado ha guursado yani waxaa lala hadlayaa waa dhalinyaradii gabar iyo wiil baa lala hadlayaa haddaad awoodid inaad guursatid guurso waa nasiixadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaadan awoodinna soon waay taas aa ku badbaado marka waxaa arkaysaa dhalinyaro fara badan oo Zubeer uu kow uu ka yahay oo asxaabtiisa ay kow ay ka yihiin oo guurka awooda aanan guursanaynin marka hadday soon ku darayaan ma sheeginani marka waxaa waaye dabcan runtii wallaahi dad badan oo guurka awoodaa jira laakiin waxay leeyihiin financial issues aa jiri kartaa maxaa la dhahaa jeebkii iyo waxaan dadka qaar waxay ka cararayaan mas-uuliyooyinka responsibilities buu leeyahay dabcan guurka waxaasay ka cararayaan gabdhahana waxaa laga yaabaa inay ka cararaan inay soo kacdo subaxdii xaajiga ay kabaha ugu hagaajiso dhulkiya soo tirtirto ilmihiina inay ka waxaas ilmo iyo waxaas waxay dhahdaan let me enjoy my life inay dhahdaan laga yaabaa gabadha oo marka waxyaalahaas iyadoo laga cararaya ayaa dadka qaar guurka ay ka yani ayna dhaqsa guursanay laakiin taladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa meesha taala mar walba marka asbaabahaas baan aniga xadiidkana inta badan aan maxallaay asal ahaan aan ka dhigtaayo qof walba markaa awoodid automatically haddaad awood maaliya iyo awood yani jismiyan waa ruuxiyan haddaa aad leedahay hore ka gurso waxba inaadan sugin saas baan aniga dhihi lahaa asbaabaha way aad bay u fara badan laakiin kale ka soo qaadano haddii asbaabo kale intaan usii gala waxaa waaye dabcan guurka qof walba horta wuu sugayaa qof walbo guur waa ku sugayaa dabcan waa haddii aad mustaqbal aad nolosha ka leedahay macnaha waxaan ka wadaa dad waxaa jira oo guurba aan rabin waa jiraan laakiin waa yaryihiin aad bay u yaryihiin marka waxaa la is weydiiyaa laba gooro guurka hadduu ku sugaayo maxaad u dibdhigay soo ma ka wanaagsana inaad marka hore aad hooshan aad gashid aad experience aad lahaatid oo aad la qabsatid waayo mar walboo la qabsatid
way kuu sahlanaanaysaa inaad yani aada sii wanaajisid guurka noloshiisa. laakiin adigoo weynaaday oo weynaan ku guursaday mashquulkii kugu sii batay inaad nolosha guurka la qabsato waa sheeko kale wixii la dhihi jiray waaye waa yar dhib badan tahay. sababto ay badiin waqtigaa noo soo koobayn insaan su-aalaha insha allah tadari doonaa insha allah. dhib ma lahan insha allah. waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan oo igu faahfaahisay. hal shay baa jiro adiga saa hadda ka dhawaajisay, waxaa tiri dhalinyarada sidayda camal aniga aan ku jiro, aniga tayda ay taawato marka waa is yaro difaacayo, su-aal baa isku yaro difaac. dhalinyarada badanaa anigoo dhalinyaradoo dhan oo Soomaaliyeed u hadlayo, horta dhalinyarada isku wada mid maahan. qaar baa maxaa la dhihi jiray guurka diyaar u ah oo niyad ku haysto, laakiin asbaabaha ay hortaagan yihiin sida hadda aad sheegtay. laakiin asbaabta ma ahan keliya financial asbaab financial ah. waxaa jirto dhalinyaro financially stable ah, laakiin aanan heli karin gabar maanta oo maaragtay shukaansiga marka oo haasaabo marka la dhaha oo hasaabaha waqtiga hasaabaha marka lagu jiro dhalinyarta aad bay u wareeraan oo maxaa la dhihi jiray qofka ku habboon noloshooda oo maaragtay oo la jaan qaadi lahayd noloshiisa inta ka dhiman qofkan dhalinyarada ah wuxuu ka cabsanayaa maybe waxaa laga yaabaa in uu lacagtan uu haysto financially stable waa la dhahayo, in uu gacan adag kusoo qaaday iyo dhidid uu kusoo qaaday. marka wuxuu isleeyahay dhalinyaradii oo maskaxda gashteen furiinkiioo batay iyo divorce rateka oo kor u kacay, qofkan dhalinyarada ah wuxuu iska dhaadhicinayaa gabadhan way hadhow waad isfuraysaan, waad kala tegaysaan, lacagta iyo maalkii aan lahayn ayadaa la tegayso, inta u badan ayadaa qaadanaysa marka la furo. weliba khaasatan su-aashaas waxaan ku darayaa badanaa marka aan islii hadda meesha aan joogo statistics aan qaaday, inta dukaan oo furan gabar garoob bay u furan tahay, oo nin soo kala tageen meherka 1 milyan ay kasoo qaadatay ku furtay. ma maqle meher 1 milyan oo nin kasoo qaadatay ku furtay. marka ninkii dhalinyaradii mentalitygaasa ku jiro. marka dhalinyaradaas hadda maxaad ugu dardaarmi lahayd ama maxaad u sheegi lahayd, inkastoo mentalitygaas ee dhalinyarada ee maskaxdooda ka buuxdo? bal su-aashaas iga jaahil bix, arrintaasa dhalinyarada qaar haysato. wallaahi waxaan isleeyahay marka horta early marriage aad guursanaysid waxaa inta badan la ogyahay inaad qof yar tahay oo qarash badanba ma kugu baxayo. pointigaas iga qor. qofka early marriage markuu guursanayo qarash badan ma galayo, waa si automatikiyan ah, lianna waaba yaryahayba. nin maanta shaqaystay oo xoolo qabsaday ma ahan nin xoolo lasoo hunguriyey ma baahanbo, sax? qofka markuu yaryahay pointigaas way ka dadka dhalinyaradaha ay muhiim u tahay oo idinka camal hadda waa idin dhaaftay odayaal aad tihiin. marka yani waxyaalaha leedka marriageka oo maxaa la dhahaa dhibaatooyinka waxaa ka mid ah qofka waxaaba loo soo raadsadaa lacag daraadiis, ma fahanti? sax waayo lacag buu haystaa. asbaabaha ay ka mid tahay oo early marriage uu kaga fiican yahay late marriageka. okay, marka lacagta uu imaado runtii horta waa arrin jirta Soomaalida ama dadkaba in laisku guursado lacag daraadeedii, waana arrin runtii wallaahi dhibkeeda leh. dhib badan bay leedahay qofka inuu lacagta shilinka bes fiiriyo uu adduun uu ka fikiro. adduunyada dabcan low kaanat iddunya tacjalu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa minha kaafiran sharbata maa waay. adduunyada waa shay runtii aad iyo aad u liita ilaahay agtiisii. ilaahay mar walbo wuxuuna xasuusiyaa inaan aakhira fiirino ana adduun fiirinayn. anagii marka waxaan yani rag iyo dumar waxaan fiirinaa adduun baan fiirinaa. waxaan dhahnaa nolol macaan ma heli doontaa, rafaad iyo waxaan yani reero dhib badan aa arkaysaa. ilaahay saan ha gelin baa dhehaysaa. dhammaanteen horta annaga ilaahay hana wada xifdiyo kulli dadkeena asxaabta walaalaha kulli aan jecelnahay.
noloshiina noo fududeeyo qanaaco ina ilaahayna siiyo wax walba waa qanaaco wax yar haddaa haysid oo ku qanacdeed ilaahay waa ku barakeynaya marka qof walba marka taasaa dadka ku barogramsan qofka wuxuu ka fikirayaa sideed nolol baashaal ah oo sida hadda Zubeer meeshuu jooga camal oo studio iska haysta sideed ku heshaa magaranti marka waxaa waay mataqaanaa sax waay qofka inuu noloshiisa ka fikiro oo noloshiisa meel oo uu ku rafaaday inuusan isgelinin laakiin priority inuu ka dhiga maaha adduun iyo lacag iyo hanti waxaa ka prioritisan waxyaalo badan si gaar ahaan markaa dhalinyarta waxaa aad ula yaaba Zubeerow dad waxaa soo batay dad aan garanayno oo anagoo dabgaab xiran wada ordi jirnay banaanamaha ku ciyaari jirnay oo maanta millionaires ah baa jira runtii صح صح يعني wala la yaabaa anagii maanta waxaa maqaayada iskaga bixinaa waysanahay male marka iyagana millionaires waay waa waxaas la soo barnay de banaanka garoonkaas kula ciyaari jirnay marka waxaa waaye marka qofka markuu dhalinyaro yahay lacag priority-giisa maaha dhalinyarada dhan aan sheegaa ilaa qofku afartameeye uu ka gaaro priority lacag hadduu saaro wax badanaa ka halaawaya qofka markuu dhalinyaro yahay waxaa priority-giisa aqoonta cilmiga waxbarashada xiriirka mujtamaca ku dhex leeyahay inuu wanaajiyo waalidiintiisa inuu u khaadimo intii waalidiintiisa ay nool yihiin waalidiintiisa uu ka duceysto taasaa muhiim ah marka inuu noloshiisa uu guursado u muhiim ah uu dego oo dhinaca uu fiirinayo uu ka leexdo waayo waxaa zaman oo khatara lagu jiraa wallaahi runtii qofka yani asagoo xataa guursaday bay weli fitanta iyo imtixaanaadkii aad u badan yihiin marka dadkay guursadaan saas ahee kii aanba waxba arkin ka waran bal marka ilaahay idin sahlo soo dheh mani haddaan kaftamo waxaan dhahaa saddex shay qofaan yani soo marin adduunka ma arkin adduunka wax badan baa ugu dhiman midda koowaad waxaa waye qofka aan beytka alla tagin qofkaan beytullaahi alxaraam aan tagin ama cumro ama xaj aana u tagin wax baa nolosha ugu dhiman qofka labaad waxaa waaye qofka aanan guursanin nolosha wax badanaa ugu dhiman magarad qofka saddexaad insha allah waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa ka yar gaabsado mar kale aan ka jawaabo insha allah taas lama sheegayo diyaar waaye marka su-aasha haddaan usii noqdo marka ma ka jawaabina hantida horta waa arrin jirta oo hantida inay wiilasha ay isdhahaan gabadha haddaa guursid qarash badan baa kaa galaayo beri inaa kala tagtaana laga yaabaa maxaa faa'iida ah yani waa sida hadda jirta ii sheegaysa su-aasha waxay tahay horta marka horeba guurka maxaa loo qaaliyeynayaa maxaan anaga isku dhibaynaayo qofkan gabadha kaa guursaday waa wiilkaagii familkaadii sodahda wiilkeeda camal waaye wiligii muxram buu ka noqonaya weligiis ma guursan karo asagana gabadhana sidoo kaleenta dadkan waa dad family inay noqdaan la rabee maxaa marka hore laisku qaaliyeynayayo wax aan awoodiis qofkaan ahayn maxaa lasoo saaraya aday naftaa darawalaatee waa taqaanaa inta baabuur la qaata waa taqaanaa aroosyada magaran howlal kala kareeyey waa taqaanaa ninka saaxiibka oo youtube-ka aan ka bartay oo mk arooskiisa arkaya malaayiin baa ku baxday aan u maleynaya mk anshax munshiidka anigaa garab taagnayn oo dhalinyaro haystay waa si fiican marka ilaahay u barakeeyo waxa waaye aroosyadaas dabcan mkda waa awoodaya wuu u qalmaa aroos noocaas amal insha allah laakiin waxaan leeyahay arooska sidiisba yani midka fudud ayaa inta badan wanaagsan saxaabada si ay ku guursadeen fiiri dadaan waxba haysanina ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu u guuriyey marka mar walba mujtamaca haddaanan guurka laisku la fududeyn lahaa maanta dhib badan oo maanta taagan ma dhici lahayn ilmo badan oo maanta xaqdaro lagu dilay iyagoo yaryar oo waxba galabsanin lama laayin ilmo badan oo maanta waxay galabsadeen aan lahayn banaamaha eeyaha kuma cuneen runtii haddii gurika la fududeyn lahaa marka waxaan dhihi lahaa marka
taa horta waa qodobka koowaad. qodobka in guurka in la adkeeya horta dhib ah. mid qodobka labaad wuxuu yahay walaalow adiga marka aad guurso lagu leeyahay iska orday midda aragtid qoorta soo qaba maaha sheekada sax ma garanti tanaa qurxanee waa iga dhex baxday dhalinyarada waxay dhahaan waa iga dhex baxday gabadhan ma garanti sax sax zamanka waxaa la joogaa tiktok iyo waxaa la joogaa iyo youtube aa la joogaayo gabar youtubera arkay waxaa dhihi maasha allah tan waa tii liisoo diray xuurutiin baa dhihisa xuurutiin mogta xuurulcayn janno waaye xuurutiin waxa waye tiinkaa laga soo biyey mogta xuurutiin waa dhihi tan marka haa sax marka waxaa waaye waxaa la dhahaa marka xuurutiinka ama gabdhaha qurxan mar walba waa la helaa taana haddii ku dhaafto mid kalaa jirta ma fahanti maalin walba stageka haddaad tagtid gaari aad raacdi ma weynaysid mogtaha marka waxaa waaye wiilka haddaad yani wiilasha qaar waxay dhahaan gabadhaana arkaa ilaa waa inaan guursadaa qaladaadka dhacay kamid tahay dhalinyarada ay sameeyaan ama qof walba uu guursanaya dadka qaarkiisa ku dhacdo war qof markaa guursanaysid siduu nebi sal allahu alayhi wasalam uu sheegay 4 shay gabadha ka fiiri tunkaxu lmara liarbac limaaliha xoolaheed lijamaaliha walinasabiha walidiiniha nebiga muxuu ku tilmaamay fadfar bidaati diini taribat yadaaka war midda oo diinta taqaano hel haddaad fiiri diinta marka ay qaadatid muftimeenka aan ka maqlaya wuxuu yidhi diinta kow fiiri yiri diinta kow number 1 waay 1 inta dhig haddii ay xoolo ay leedahay 0 ku dar waa 10 hadday nasab ay leedahay 0 kale ku dar waa 100 hadday ay qurux kusii darsatay 0 kale ku dar waa 1000 mabant laakiin haddii wanka meesha laga qaada haddii wanka meesha laga leexay maxaa soo haray 0 waa kulli 0 waay eber waay eber la kordho eber la hoos dhawaay waay marka waa istinbaad cajiib ah marka waxa waaye gabdhihii oo runtii diinta barteen oo maanta joogaan ayaa buuxa marka qurux leh in la fiiriyo maalin quruxda waa dhamaanaysaa maanta 2 sano gudaheed ama sano waqti yar gudaheed quruxda way tagi maantana quruxda suuqayba iska taalaaba aslan wax qurux oo tii natural ka waa la diiday marka ala kulli xaal nasab haddii la dhahana qof walba maanta laan dheernimo uu sheegtaa marka waxaan dhihi lahaa gabdhahayana oo wanaagsan oo aad u fara badan ay joogaan oo diinta barteen kuwaas yani ayaa wallaahi wax badan kuwaan saddexda shay kale waad helaysaa quruxna waad helay nasabna waad helay xoolana waad helaysaa gabar reer hadduu ku barakeysmo khalaas yani xoolana waa heshay adduunna waa heshay marka waxaan dhihi lahaa furiinka maxaaba laga cabsadaaba marka hore haddaad gabadha diinku aad ku raasatid reerkana ay sida talada nebiga ay qaataan idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh war hadduu idin imaado qof aad raalli ka tihiin diintiisa bes ma la dhihin fiiriya akhlaaqa lagu daray meesha waa muhiim qodobka aad iyo aad muhiim u yahay qofka hadduu diin walba sheegto oosan akhlaaq lahayn wax isku hayo ma leh ilaahay kitaabka aragti bukhari saxiix al-bukhari korka xifdisanaa waxaad isku haysid ma leh haddaadan akhlaaq lahayn nabiga calayhi salatu wasalaam akhlaaq baa lala soo diray yani inamaa bucithtu liutammima makaarima alakhlaaq marka waxaa la yidhi haddaad qofkaad akhlaaqdiisa iyo diintiisa aad raalli ku noqotaan u guuriyaa la dheh waalidiinta marka anaga waxaas ma sameeyan hadhowna beri gabadheeni qofkaan xoolo male meeqa qofkaan garanaynaa xoolo daraadooda loo celiyey xoolo la-aan loo celiyey oo haddana ilaahay xoolo siiya haddana fiiri adig nairobi ay nala joogaan marka hore xoolo la-aana loo celiyey waxayr kadibna xoolihii waa yeesheen haddii loo sabri lahaa ka waran oo la iska siin lahaa gabadha laba goora nin baa guursan lahaa gabadha iyo wiilka way israbaan ogow yani xoolo daraaddeeda ay runtii loo celiya marka ani waxaan dhihi lahaa arrimahaas dhanba haddii la soxo wax badan ay fududaan lahayd wiilasha marka waxaan dhihi lahaa ali marriage-ka ah waxaa yani marka hore gabadha iska fiiriya gabar lama guursado horta reerkeeda la guursadaa la dhahaa gabadha reerkeeda inaad iska fiirisaan reerka haddii reer fiican ay ka dhalatay oo ahlo diini ah diinta la sheegaayo maanta in qamiis la xirto oo maxaa la dhahay garka la daysado oo bilaay la iska dhiga maaha diinta waa akhlaaq qofka hadduu salaadiisa kusoo tukado oo dadka wanaag iyo run iyo kula dhaqmo si saxsan diinta waa intaa
oo ilaahigiisu ka cabsanayo qofka laa ilaaha ila allah mar hadduu haysto intaasaa ku filan ma garad wixiisa kale inta hoosaa laguma dirsan dadka qaar hadday t-shirt kugu arkaan kan waa haddii shaati surwaal lagu arko waxaa lagu leeyahay .com aa noqotee .com haddaan noqdo maxaa .com maxaa ka fiican caalamka .com aa la joogaay ma garad sax marka wallaahi adduunka marka meelaha ku safarto waa la yaabaysaa waxaa arkaysaa gabdho yar oo qamaar carcarad camal waxaa la xirtaa qamaara la xirtaa xijaab hataa ma xirtaan gabdhahena Soomaaliyeed quruxda maasha Allah meel walbo New York iyo iyagoo meel walba joogay xijaabkooda wataan laakiin wadamada carabta qamaar baa la xirtaa gabadha iyadoo qamaar xiran oo anaga marka aragna waa lagu soo meeshaan aan dhahan taagayna laakiin gabdhahaas wallaahi in badan oo xijaaban oo indha shareeran bay ka diin fiican yihiin in badan oo kamid ah yani run ahaan baan soo aragnay marka ala kulli hal diinta la sheegay marka waa yani waa qalbiga wax ku jira waaye ma ahan wax madaxarka kore ma aha marka gabar reer hadii aad yani aad ku qanacdid ani waxa dhiilaan gabdhaas ay ka fakanin wallahi billahi ay ka fakanin ay ka baxsanin waxa ka cabsatin malaha maanta reer aad hal sana aad xitaa la soo joogtid oo reer wanaagsan ah nolosha dabcan waa la tagi doonaa Zubayro adduunka waa laga tagi doonaa si wax xaalad daa'ima ma lahan wax walba Allah qadara hadaa gabadha is guursataan oo qarash yar aad ku guursatid oo alla uu ku qadaro inaad kala tagtaan waa kala tagaysaan hadaa qarash badan aad ku guursatid oo Ilaahay ku qor inaad kala tagtaan waa kala tagaysaan yani waa shay qadarka waa shay meesha ku jira ma garad ay shay ay xaala dad isku wadaagsan kala tagay dad aan isku wanaagsaneyn isku waaray marka waa calaf waxa dhila taas waxa ka sii muhiimsan hadafka ka muhiimsan gabadha hada maanta aad guursatid oo Ilaahay hal cunug idin kala siiyo cunugaas laga yaabaa inuu idin isku keen Ilaahay barakeeyo laga yaabaa barako weyn khayr badan oo ka dhasho marka inahaas aan dhihi lahaa mar walba waxa aniga fanska waxaan ahay Ali Marriage-ka gabdhaha iyagoo yar ha lagu yaacan leeyahay ma garan okay adiga fans saxdeero ma sha Allah muxumo taas nimadan ka dhihi inkastoo aad tiri fanska Ali Marriage-kan ahay annagaba haddii aan dhahno maanta aan ku soo raacno oo fansagaaga noqonayna aan ku dhahno dhalinyaro ahaan anigoo dhalinyarada Soomaaliyeed soo hor socdo u hadlahayo maanta oo dadka soo horfariistay waxaa jirto dhalinyaro badan oo diyaar u ahaa inay Ali Marriage sameeyaan but arrin aad xasaasi u ah oo meel walbana ka jirto oo cudurna ah ay ka hortaaganta Ali Marriage inay sameeyaan arrintaas oo ah qabiil Soomaalida oo qabiil isku xirayso dhalinyaro badan oo faara qabiilaysi lagu daayay oo lagu dulmarina way jirtaa dhalinyaro badan oo arrintan qabiilka lagu xirin way jirtaa nasabka walinasabi hada hadda aad sheegaysana way ku jirtaa sida adiga aad sheegaysay marka arrintaas qabiilka ah ma kula tahay inay saameyn ay ku tahay oo dadkan inay Ali Marriage-kana diyaar u yihiin laakiin ay ka hortaagan tahay soo kulama ah at least والله زبير قبلنا أيوة تسمعين يا زبير حواي قبيل كارنتي وشيء آذي أتودي بدل الملكي ولا جهلا